saddex nooc baan ku intaanan taa aad ugu dagelin saddex nooc baan ku qiimeeyay aan ku magacaabay ama ku macneeyay guurka yani hadda maanta bulshadeena ka dhex jiro mid waa guurka caadiga wiil calaf doon ama nin calaf doon gabar calaf doon iyo ama qof habar calaf doon is helaan isguursadaan sidii wadadii la mari jiray maraan gabadh yani la doono reerkoodii guur dhaca hadba si guurka loo sameystaba laakiin la arkaa isguursadaan isku waaraan alxamdulillah isku waari waayaan taas waa guur sax oo labada walilaahi ka ahayd midna waa mid gabadha lilaahi ka ah qof bay kulmayaan bas baranayaan laakiin ninka dhankiisa guurka waa guur vacation ah okay mostly inta badan waxaa sameeyaan walaalaheen wiilasha iyo ragga ka imaadaan qurbaha mar alla markay soo aadayaan Afrika arrinna ma aha Soomaali kaliya qaas ku ah saan ogaaday waa arrin Afrika dhan haysato maxaa yeelay qurbaha wadamada Afrika oo dhan baa laga aadaa laakiin anaga de hadda Soomaali baan aadan guriga u soo noqdo walaalaheen markay fasaxa soo aadayaan ruuxa markuu fasaxa aadayo waa inuu dejisto program ama package qof waxaan u socdaa Kenya kaba soo qaad waxaan aaday xeebta waxaan aaday Masai Mara waxaan aaday package-ka ay dejisanayaan waxaa uga mid ah waa inaan hadee 4 biloodna si ku meel gaar gabar si ku meel gaar oo yani baashaalka holiday-ga ka mid ah gabadhii buu baranayaa sanadka soo socda bishii 6 ayaan fasax u imaanaya buu leeyahay bishii 5 meeshii lagu gaar reerkii buu ka soo doonayaa aroos baa loo sameynaya damdam gabadha reerkooda dhinac walba ayaga guurkan waa guur ulilaahi ah laakiin ninkan khiyaanadaas uu wataa mar alla markuu guursado 4-5 bilood dhamaatana wuu laabtaa ama markii uu telefoonku ka bedeshaa oo wuu lumaa inta badan ilaa gabadhiis fasaqdo ama markii uu soo furaa guurkaas aan ku magacaabayaa marka vacation marriage waxa guur oo kale marka jira in labadan qof heshiiyaan oo ay dhahayaan marka waxaan rabnaa inaan isguursano laakiin ninkii uu leeyahay reer kalaan leeyahay aniga marka reerkayga qashaad iyo wareer ma galo waxaan rabaa inaan ku guursado laakiin guurka uu qarsoonaado guurka laakiin gabadha reerkooda u tagi reerkooda loo sheegay waligeedu wuu joogi shaahidaal yani uu lahaan meherka laakiin meher la cinwaaniyo oo la bumbuuni ma ahanayo gabadha kale baa laga qarinayaa bas laakiin inta kale si sax ah loo maraa qofta kale ninka reerkooda laakiin gabarta la doonaa reerkooda si sax ah si sax ay og yihiin marka laakiin waa guur sax ah xaq islaami kale yani meherkaas waa mid jiro laakiin khiyaana ku jirta qof baa xaqeedii ولهذا حق إن العواني ولا أقعد لكن سواء أوكي دينيا لكن دينيا أصلا مهركاس مجرى I think علماء كله وجرى دي مرب ووالد كجوا مشاهدين لا رهي لكن عوانين كلام سجر تقفت لما أقعد إنك رير كود ما أقو حاسكسي كلام أقو أنت بدل حكي على كم سوقات إنك في الدنيا هاي منباسة نيرو شقوي ما هذا هالكم وقف كجورسنا أما رير جارس واي جارس الدنيا هالكم محيط أما رير مقدش واي أما رير نيرو واي مقدش كجورسنا هدبا لكن وحي أهد ويعني وقفي عنتها أنت وش قيسة لو وقفوا كم سوقات قربيس رجوعان ونمكن رير كيس قربة دقنتا gabadha reerkooda Afrika jirtay Suuriyadii iyo gabaadkii wax walba loo soo diray ayagana halkaas marka siday ku kulmaan dhuumashooda ay nolosha ku wadayaan taas iyadana waa guurka qarsoon ama guurka yani aamusan yaan ku magacaabay silent marriage